daawada maanta waxaynu sheegaynaa 10 arrimood oo ay tahay inaanad cidna aanad u sheegin naftaada kaliya ay u gaar ahaato waa 10 shay oo ay tahay inay sir adiga ku ahaato cid kale hadaad gaarsiisana dib bay ku keenaysaa 10 ka shay koow waxa ka noqonaya waa in ahdaafta shakhsiga ee aad dejisatay iyo mashaariicda shakhsiyan aad adigu wadato ee rabto inaad samayso cidna iskaga sheeg haddii aad rabto inaad ganacsi abuurto oo fikrad ganacsi aad haysato ama ahdaaf baad dejisatay ama mashruuc baad rabtaa oo runtii waxbarasho inaad qabato cidna ha u sheegin sababtu maxay tahay sababtu waxa tahay koow markaad qof u sheegto qofkan wuxuu noqon karaa qof wanaagsan oo ku jecel markaad fikradda u sheegtay waxa aad wadatay ahdaaftaada iyo mashaariicdaada intuu ku farxo ayuu ku amaanaya markuu ku amaano dhib baa kugu imanaysa markuu sidaa ku amaano sida cilmi nafsiga ay sheegayaan markuu ku amaano naftaadu raaxay dareemaysaa sacaadiye raaxayr baa dareemaysaa nafis baa dareemaysaa taasi waxay keentaa hormoonaad bay soo saartaa hormoonaadka markay soo saarto qalbigii ay u dirto maxaa imanaya maskaxdii waxay aaminaysaa hawshii la qabtayba maskaxdii waxay aaminaysaa in hawshii la qabtay taasi maxay kugu keenaysaa hadhow markaad hawsha istiraab bilow in caajis iyo daal iyo dib u gurasha kugu dhacdo sababtu waxa weeyaan amaantii aad heli lahayd markaad barnaamijkan qabato ama mashruucan qabato ayaad sii qadimatay marka already naftaadu way heshay mooti amaantii marka mar laba inay hawshii qabato caajis bay ku keenaysaa caajis baa imanaya iyo runtii daal taasi waa qodobka koowaad qodobka labaad waxa laga yaabaa qofkan aad u sheegtay inuu yahayba qof runtii aan ku jeclayn ama qof dee laga yaabo dhinaca kale inuu wax ka eego dhinaca salbiga inuu wax ka eego waxa laga yaabaa inuu hawshan aad ka hadlaysa iyo ahdaaftan iyo mashaariicdaadanba ma soconayaan hore loo soo jijaabiye taasi adii maxay kugu keenaysaa niyad jab bay kugu keenaysaa inaad wixii ka niyad jabto oo wixii aanad bilaabin qodob kalena u dhici karaa markaad istiraado waxan aad wadatay mashaariicda dadka qaar la sheergaree taladaa kugu badanaysa intaasoo qof baa tala ku siinaya qofba dhinac buu ka eegaya hadhow maxaa imanaya qaabkii aad rabtay intaad ka leexato inaad istiraado qaabkii dadkan ay u rabaan ama qaabkii kuugu sheegeen inaad u qabato kadibna aad gaadhi weydo hadafkaagii ama sidii aad rabtay wuxuu noqon waayaan waxaa kaloo dhici kartaa markaad dadka ahdaaftaadii mashaariicdaada aad u sheegto ay dadku ogaadaan ina baqaba ku galaba oo istirado niyo haddii aad muxuu hawsha qaban weydo ama si qaldan u qabato bilaa dadku ku caayaan bilaa sidii ay filanayeen aad noqon weyda markaa baqaa ku galaya oo kalsoonida baa kaa lumaysa sidaa daraadeed waxaa daawada muhiim ah howlahaaga runtii mashaariicda ku saabsan iyo ahdaaftaada shakhsiga ujeedooyinka aad noloshan ka leedahay rabtay inaad gaadho cidna ha u sheegin arrinta sidaa maxaynu u leenahay waxaan u leenahay iska daa in runtii cilmu nafsiga waxaan ay ka hadlaan xadiis baa ku soo arorayba istaciinu calaa qadaa'i xawaa'ijikum bilkitmaan waa xadiis saxiixa oo albaano saxiixa weeyaan yani hawlihiina idin gaarka aad qabsanaysaan baahihiina gaarkaa ku kaalmaysa si muxaahay qarsoon oo si qarsoon u qabsada oo dadka ha wada sheegina marka qodobka koowaad wuxuu ku leeyahay daawade waa inay sir ku noqoto hawlaha gaarka ah ee ahdaaftaada iyo mashaariicdaadu qodobka labaad ee la rabo inaan cidna u sheegin oo uu sir ku ahaado waxa weeyaan haddii ixsaan aad samayso haddii wanaag aad cid u qabato wanaaga cidaad u qabatay ha sheeginde qof faqiirad caawisay qof dhiban baad wax fiican u qabatay in khayr baad qabatay qof aad u samaysay qof baad shaqo geysay ha sheegin haddii aad sheegto wixii wanaageed samaysay laba dhib way keensanaysaa in qofkii waxaan aad u qabato ku nacaba marka qof meel aad shaqo geyso oo maalin kasta tira hebel baa shaqo geeyay halkaad is leedahay qofkaasi ammaan buu ku hayaa nacayb buu ku qaadaya sababtoo meel kasta markuu ka maqlo hebel baa meeshaa ku geeyey aakhirka ku nacaya taasi waa mid muhiima talabaad ka dhici karta waxa weeyaan wanaagii aad samaysay markaad sheegto inaad ajarkiisii weydaba oo man iyo adaba quraanku waa diiday in muxaahayay runtii la raaciyo wixii wanaaga la samaynayo marka qodobkaasi wuxuu ku leeyahay war wixii wanaageed qof u qabatana ha sheegin aakhirada ajar heli hadaad qarisana waxa laga yaabaa inaanay sheekadu isqarino qofkan waxaad u qabatayba inuu isagu sheegaa dhici karta oo halka amaantu kaaga timaado laakiinse adigu waxba ha sheegin sir ha ku ahaato
qodobka saddexaad ee tahay inaad qarisaa wax weyn cidna aanad u sheegin khilaaf hadduu idin dhex yeelo adiga iyo reerkaaga mashaakil hadday jiraan adiga iyo reerkaaga iyo xaaskaaga adiga iyo zawjka ama ninkaaga hadduu khilaaf idin dhex yaalo ha sheegin mushkiladda ugu weyn waxay tahay labada qof is qabaa markay khilaafkii dhex yeelay ay dhexdooda ka dhex saaraan cid kale u sheegaan xalku aad buu adkaada bal waxa dhacda labadii qof marka cid kale u waramaan inay asraar faafiyaan oo gabadha ninkii ay wax ka sheegto ama ninku gabadhii wax ka sheego taasi maxay keensanaysaa ninku markuu